kelmadeeda waxay ahayd macnaha haddii maxaa ka dhalan karo haddii oo mucaamalaadkii ee hadduu dood ka dhalato maxaa lagu xalinaa see loo xalinaa mucaamalaadka xaliskiisa midna waa mid ka daba tag ah midna waa mid intaynan dhicin ka hor laga baaraan degaayo midda laga baaraan degaayo waa midda ah inay wixii qoran yihiin faktubuuhu ayaa la yidhi aayatul mudaayana ayaa ka sheekeynayso ama sharciga hadda si loo yaqaano kale nootaayo ama waxa loo yaqaano kaatibul cadli wax loo yaqaan marka wixii waa inay qoran yihiin oo mucaamalaadkii ay noqdaan kuwa qoran faktubuuhdaas sunnay ahayd marka waxaa la yidhi maadaama la yidhi laba markhaati haddii loo sameeyo kadib la yidhi farihaanun maqbuuda oo haddii rahan la qabta ahayd laakiin fi hada alcasri xukunkaas sidiis mu ahaana shareecada loo fiiriyo laftigiisa mase waxay noqonaysaa shaygii in la diiwaan geliyo inuu waajib noqdo culummada fiqiga ama usuul fiqi ama maqaasida hadda waxaa loo badinayaa inay noqoto waajib sababtoo ah mucaamalaadka ma sugnaan karaan haddaanan qornayn oo shaygii doodiisii iyo markhaati raadintiisii iyo hebel xaguu ku maqlay iyo waxaasaa dood badan gelaysaa laakiin marka ay qoran yihiin waxaa laga rabaa qofka kaatibul cadliga ahna waxaa laga rabaa cuquudi waayo oo sheekh cabdirasaaq ka sheekeeye kaatibul cadliga ninka ah waa inuu aqoon u leeyahay maxaa shareecada waafaqsan maxaa sharciga aanu ogolayn waa inuu u kala qoraa wax oo sharciga waafaqsan waa inuu kala qoraa haddii sharciga u waafaqsanayna waa inuu yidhaahdaa waxaan ma soconayaan oo tala sharci uu siiyaa sidaas darteeda marka qof kaste wuxuu u baahan yahay ama hay-ad kaste waxay u baahan tahay inay heshaa la taliyo sharci oo iskugu jiro sharcigii shareecadana yaqaano qaanuunkiina yaqaano macnaha sidaas darteeda hadda kulliyadaha badanaa waxaa arkaysaa waxaa la isku daraa shareeca wal qaanuun laanno qof soomaali ah hadda keliya hadduu shareeco keliya bartane qaanuunkii iyo tandiimintiisii iyo nidaamintiisiina waa ku adkaanaysaa hadduu qaanuunkii keliya uu bartane waxaa ku adkaanaya asagana inuu mabaadi'dii shareecada oo maanta dhanna looga sheekeynayay oo waxba ka garan waayo sidaas darteed marka mid waa ka hortagaas oo in laga hortago oo loo sameeyo in ay leedahay hay-adda ama ay leedahay raqaaba sharciya hadda waxa loo sameeyo waxaa waaye in laga hortago inayna dhicin qaladaad hay-adda dhan waxa loo sameeyo waxaa ka mid ah inayna ka hortagto inayna khaladaad hadhow dood imaanin waxi oo doodii laga hortago haddii doodii ay timaado marka xagee la aadaa xagee lagu xalinaa waxaa lagu xalinayaa maxkamad ama wax la yidhaahdo taxkiim maxkamadda ay khusayso macnaha haddii shaygii mucaamalaadka waa madani waxaa iskale maxkamadaha madaniga ah iskale ayagaa u fiirinayo maxaa waafaqsan dadkan waxay isku hayaan wixii ay qorteen iyo wixii ay kala waxaysteen maxaa ka imaanaya sidaas darteed marka waxaa arkaysaa marka arrimaha dhulalka ku saabsan oo kale dhul hadduu ku saabsan yahay waa inuu diiwaan gashan yahay dowladda hoose waa in laga diiwaan geliyaa dhul ala wareegta adiga waxaa arkaysaa in dhulkaas haddaana soo diiwaan gelin oo adiga inuu kugu soo wareegay aadna soo diiwaan gelinin oo dowladda hoose aad ka diiwaan gelinin hadhow lahaanshihiisa waa la isku haystaa ama baabuuraa gadatay baabuuraa loo gaday qofkii haddii aanan baabuurkii aynan bankiga uu qofka ku wareejinin oo wareejintiisaas aanan la diiwaan gelinin oo laga diiwaan gelin wasaaradda gaadiidka hadhow yaa iskale baabuurka hadhow yaa yeelanaa gaarigii hadhow yaa yeelanaa dhulkii istiqraar ma jiro marka yaa kala saaraa marka markaas dambe waxaa lagu kala saarayaa maxkamadda lagu kala saaraya laakiin annaga waxaa jiro oo shuruucdeena weli naaqis ka ah wax la yidhaahda taxkiim wax la yidhaahda in mucaamalaadka badanaa hadda caalamkane markii oo heshiisyo la gelaayo maxkamadda waxay gelaysaa laano jiiro dheer qarash badan
daba socod badan waqti dheer ayay maxkamadda qaadataa laakiin taxkiimka waxa wala jiha aad dooratay inay idin dhexdhexayso arrintiina xaliso marka heshiiska qorayseena waxa ku qortay haddii hadhow khilaaf dhaco waa in anaga ka heshiin karno haddii aan anaga ka heshiin wayno xageen aadaynaa haddaad tiraahdo maxkamadda aan aadaynaa waxaad gashay maxkamadda iyo qarashkeeda iyo socodkeeda iyo hadda waxaa arkaysaa mararka qaar qof oo maxkamadaha kula laabanayo oo muddo dheer ku qaatay 2 sano 3 sano ku qaatay wixiisa in loo xukumo si taas loo soo gaabiyo mucaamalaadka waxaa loo sameeyaa adduunyada hadda ayadoo shareecadana la waafajina waa musaalaxadii iyo waxyaalahaas ay ka gelaysaa asulxu khayrun ay shareecada ka gelaysaa in la nidaamiyo oo taxkiim laga dhigo taxkiim lira xarumo xalliyo khilaafaadka waa inay jiraan sidaas darteeda hadda wasaaradda cadaaladda waxay gacanta ku haysaa in xarumahaas nidaamintooda iyo sharciyeyntooda sharcigii loo hiigsan lahay in la sameeyo dadka bangiyada iyo dhaqaalaha ka shaqeeyana faa'iido badan oo ugu jirto in la sameeyo taxkiimkaas inay qaybtooda ka qaataan waa muhiim oo mataqaanaa si maxkamadaha ay uga reystaan laano hadhow qofkii wixiisi waxaa lagu xalinayaa taxkiimka sida hadda kuwa aan sharciyeysanayn oo shaqeeyaa jira soo ma waxaa ka mid ah xarumaha hadda muqdisho waxaa ugu caansan xarunta Abu Hurayra ugu caansan laano way xalisaa mucaamalaadka iyo waxyaalahaas waa aad u xalisaa taasoo regulation in loo sameeyo rabtaa oo nidaam iyo tandiim loo sameeyo marka labadaas xal ayay ku imaan kartaa inaad marka hore ka baaraan degto oo nootaaye iyo wax la kala qortay ay noqdaan iyo marka dambe xagee lagu xalinayaa oo ama maxkamad ama taxkiim mucaamalaadka haddana waxaa u fiican taxkiimkaas u fiican waxaan filayaa labadaas xal kelimada lagu qoray inay ahayd waxaan rabay inaan aad ugu mahad celiyo hay'addan aan ka soo qayb galay markii labaad ka soo qayb galkeeda waxaan aad marka laakiin ku dardaarmi lahay hadda waxaa jiro dawladda iyo systemka private-ka ma kala maarmaan laano dawladda yaa maamulayso oo sharciyadii dejinayso sidaas darteed waxaa aad ula qurxanaan lahayd marka arrimahan oo kale la sameynayo oo shareecada laga hadlayo in waxaa jiro aanay leeyihiin qaybaha bangiga dhaxo ama wasaaradda maaliyadda ama hay'adaha sharci dejinta khuseeyo waxay leeyihiin hay'ado ama waxay leeyihiin agaasiyaal waxay leeyihiin qaybo in laga soo qayb geliyo sababtoo ah waxay kamid tahay ka hortagaysaa in berri ka maalin sidii sharcigii hadda dhaxda laga celiyay asoo baarlamaanka marayo kale dhaxda laga celiyay oo culimada Sheekh Cabdirasaaq iyo Dr. Liibaan iyo Sheekh Alwajiis ay ka qabteen inayna soo gaarin sababta keenaysa mataqaanaa sababta keenaysa waxaa waaye dadka sharciga samaynayo ma yaqaanaan shareecada dadka sharciga samaynayo ma yaqaanaan shareecada ama qaarkood copy paste wax la yiraahdo la samaynayo oo sharci kale oo dawlad kale ay lahayd ayaa laga soo qaadaya asoo sidiisii ayaa laga yaabaa in la turjumo laakiin haddii kulamadan oo kale ay ka soo qayb galaan oo lagu qayb qaado waxay yeelanayaan wacyigelintan ayay qayb ka noqonaysaa oo mataqaanaa ay ka noqonaysaa marka in lagu daro qaybtaasna aad iyo aad aan ugu dardaarmayaa aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh